cashirkan waxaan ku baranaynaa factoring by grouping sida loo factor gareeyo group ahaan baan ku baranaynaa. Waxaan factor gareynaynaa 12x square lagu daray 5x 15x lagu daray 24x lagu daray 30. kuwan baan factor gareynaynaa polynomialkan. Marka ugu horeysa waxaa la substaa group ahaan baa loo dhigtaa. waxaa la substaa tusaalaheen wuxuu ahaa 12x square lagu daray 15x buu ahaa. marka waxaa la subiyaa labadii termba waxaa lagu wareejistaa parentheses si aad hal group iskaga dhigtid. kanna waxaan ka dhigaynaa 24x lagu daray 30. 24 lagu daray 30. marka hadda labadan term waxaan gelinay parentheses ayaan dhex gelinay. labadan termna kan iyo kanna 24x iyo 30na waxaan dhex gelinay parentheses ayaan dhex gelinay. marka saas u dhex gelisid waxaan ka dhignay laba group ayaan ka dhignay. kan waa hal group oo parentheseskan, kan kalena waa hal group parentheseskan. marka waxaa la subiyaa maadaama ay laba parentheses ku dhex jiraan, waxaa la subiyaa groupkanna goonidiisa loo factor gareeyaa, groupkanna goonidiisa loo factor gareeyaa. marka ugu horeysa kan baan ka bilaabaynaa. marka ugu horeysa waxaan fiirinaynaa greatest common factorka ama lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 12 iyo 15. waa maxay lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 12 iyo 15? waa 3 weeye. markay saas tahay xarfaha x square iyo x-ta waxaan qaadanaynaa midka ugu exponent yar. labadan x square buu leeyahay, kanna wuxuu leeyahay hal exponent. marka x-ta ayaa ugu exponent yar halta x. marka saas u qaadatid baad waxaad subinaysaa 3x waa greatest common factorka. haddii aadan aqoon greatest common factorka waxaad daawataa video kale ku saabsan greatest common factorka. hadda marka waxaan yeelaynaa 3x waa greatest common factorka 12x square iyo 15x way. marka waxaan subinaynaa 12x baan waxaan u qaybinaynaa 3x. 12 u qaybi 3 waa 4. x square waxaad u qaybisaa x. x square loo qaybiyey x waa 1x. markii la isku qaybinayo xarfaha waxaa la subiyaa exponentiyadooda ayaa la kala jaraa. 2 ka jar kanoo leh exponent 1. marka 1 baa leh, laakiin halka lama dhigto qarsoon yahay. hadda waxaan subinaynaa 15x baan waxaan u qaybinaynaa 3x. 15 u qaybi 3 waa 5. 15 loo qaybiyey 3 waa 5. x u qaybi x waa eber. marka dhankan waan factor gareynay, wuxuu noqday sidaa. hadda dhankan kale baan factor gareynaynaa groupka kale 24x iyo 30 baan factor gareynaynaa. marka 24 iyo 30 waa maxay lambarka ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo? lambarka ugu weyn oo 24 loo qaybin karo 30na loo qaybin karo waa lambar 6. marka lambar 6 meesha ku dhigatid baad waxaad subinaysaa parentheses baad dhiganaysaa. haddana 24 baad u qaybinaysaa 6. 24 u qaybi 6 waa 4x. sababtoo ah 24x loo qaybi 6 waa 4x. 30 u qaybi 6. 30 loo qaybi 6 waa 5. markaa saas u qoratid hadda waad factor garaysay dhankan midig groupkii ahaa. groupkana waan factor garaynay. marka waxaad fiirisaa, bal u fiirso parentheseska lambarada ku dhex jira labada groupba isku mid weeye. groupkan dhanka bidix waxaa ku dhex jira parentheseskiisa 4x plus 5 ayaa ku dhex jirta. groupkan dhanka midig ahna parentheseskiisa waxaa ku dhex jira 4x plus 5. maadaama ay parentheseska labada group ay isku mid yihiin, waxaa la subiyaa lambarkaas
iyo lambarkaas baa la soo qaataa parenthesis baa la geliyaa labadan parenthesis ku dhex jirana hal baa laga soo qaataa sida hadda 3 parenthesis baan subsanaynaa 3x baan soo qaadanaynaa oo balaanka joogtay labada lambar oo balaanka jooga 3x iyo lambar 6 baa parenthesis gelinaynaa 3x waan soo qaadanay halkan baan keensanay lambar 6na waan soo qaadanaynaa halkaas baan keensanaynaa parenthesis baan dhex gelinay marka saas u dhex gashatid lambarada balan ku jira parenthesiska waxaa la subiyay hadda 4x plus 5 iyo 4x plus 5 labadan parenthesis waa laba lambar oo isku mid ah marka midkood baa la soo qaataa hal mid baa la iska soo qaataa 4x plus 5 baa la substaa marka hadda waan factor garaynay wuxuuna noqday 3x plus 6 haddana parenthesiska hadda calaamadii plusta uma dhexaynayso way isku dhegan yihiin parenthesiska hadda waan check garayn karnaa haddii waan check garaynaynaba anagoo subinayna sida la iskugu dhufan jiray polynomialka haddii aadan aqoon isku dhufashada polynomialka xataa hadaa video kala kusasan marka hadda si aan u check garayno inaan saxsanahay in kale waxaan subinaynaa 3x baan waxaan ku dhufanaynaa 4x 3x ku dhufa 4x waa 12x square markii la isku dhufanayo laba xaraf waxaa la isku daraa exponentigooda kanoo hal iyo kanoo hal isku dar x square ayuu noqonayaa hadda 3x waxaad ku dhufataa 5 3x lagu dhuftay 5 waa 15x 3x lagu dhuftay 5 waa 15x 6 waxaad ku dhufataa 4x 6 lagu dhuftay 4x waa 24x weeye 24x 6 waxaad ku dhufataa 5 6 lagu dhuftay 5 waa 30 marka soo ma ujeedid marka saas u check garaynay waxaan ka wadaa markaan saan iskugu dhufanay tusaalaheeni problemkeeni wuxuu u egaaday original problemkeeni oo ahaa midkan soo maaragta isku egyihiin 12x plus 15 12x square plus 15x plus 24x plus 30 marka saas ayaa loo check garayaan hadda tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 2x oo la exponent 3 lagu daray 4x oo la exponent 2 lagu daray x lagu daray 2 marka waxaan subinaynaa group ahaan ayaan u dhiganaynaa labadan term parenthesis ayaan gelinaynaa labadan termna parenthesis ayaan dhex gelinaynaa marka waxaan u dhiganaynaa 2x oo la exponent 3 lagu daray 2x waxaan ka wadaa 4x oo la exponent 2 baad soo bisanaysaa haddana calaamadii u dhexaysay maxay ahayd calaamad ku darta ahayd ayaa u dhexaysay markaa saas subisid haddana groupkan baa waxaad dhex gelinaysaa parenthesis labadii termba waxaan dhex gelinaynaa parenthesis marka hadda waan dhex gelinay marka waxaan subinaynaa kan dhankan bidix baa gooni u factor garaynaynaa kuwan midigna gooni baan u factor garaynaynaa marka hadda marka ugu horeysa si aan u factor garayno 2x oo la exponent 3 lagu daray 4x oo la exponent 2 si aan u factor garayno waxaan subinaynaa waxaan soo helaynaa greatest common factorka labadan ama lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo labadoodaba waa maxay lambarka ugu weyn oo kan loo qaybin karo kanna loo qaybin karo waa lambar 2 waa loo qaybin karaa lambar 2na 4 waa loo qaybin karaa marka lambar 2 waa lambarka ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo xarfaha fiiri marka xarfaha kee ugu exponent yar kan wuxuu leeyahay exponentigiisa 3 kan wuxuu leeyahay exponentigiisa 2 marka kan baa ugu exponent yar x square-ka ugu exponent yar marka asaga soo qaadanaysa halkaas baad ku dhiganaysaa marka saas u subisatid baa parenthesis baad subisanaysaa marka hadda 2x square waa greatest common factorka ama kan ugu weyn oo loo qaybin karo midkan iyo midkanba marka waxaan subinaynaa 2 u qaybi 2 waa 1 marka dhankan maxaa nugu soo haraya 2 loo qaybiyo waa 1
xarfaha marka isku qaybinaynaa x oo leh exponent 3 waxaad u qaybisaa x oo leh exponent 2 maxaad helaysaa waxaad helaysaa x ayaad helaysaa sababtoo ah xarfaha marka isku qaybinaysid waxa la subiyaa exponentiyadooda ayaa la kala jira 3 ka jar 2 waa x oo leh exponent 1 laakiin halka lama qorto mar walba uu qarsoon yahay hadda 4x square baan u qaybinaynaa 2x square 4 u qaybi 2 4 2 loo qaybiyey waa 2 xarfaha isku qaybi x square u qaybi x square waxba soo maharayo waa eber sababtoo ah kanoo exponentigiisa 2 leh waxaad ka jirtaa kanoo 2 leh 2 ka jir waa eber marka saas ayaa noo soo hartay haddana midkan dhankan waan factor garayno horta qaybtan kale oo dhanka midig ah si aan u factor garayno ma leeyihiin wax common factor wax greatest common factor ma leeyihiin ama ma jira lambar ugu weyn oo labadooda loo qaybin karo waa maxay lambarka ugu weyn oo labadooda loo qaybin karo x haddana x plus 2 lambar weyn oo x loo qaybin karo labana loo qaybin karo ma jira hadda maadaama uusan kan jirin lambar waxaan subinaynaa hal baan dhiganaynaa hal sababtoo ah lambar hal waa loo qaybin karaa labadoodaba marka hal baad dhiganaysaa haddana x baad dhiganaysaa haddana 2 marka saas baa u dhiganaysaa halka markuu saan yahay waxaad subinaysaa hadda kanoo kale x plus 2 ma haysto greatest common factorka marka maadaama uusan haysan greatest common factorka hal baad dhiganaysaa halkaas ku dhiganaysaa markaa saas u dhigatid baad waxaad subinaysaa hadda bal u fiirso lambarada ku dhex jira parenthesiska waa laba isku mid ah x plus 2 iyo x plus 2 waa isku mid marka maadaama ay isku mid yihiin waa sidaan ka rabnay inay isku mid ahaadaan baama sidaan u subinayna processkan marka waxaan subinaynaa labada lambar oo ballaanka jooga parenthesiska sida 2x square iyo lambar 1 baan waxaan dhex gelinaynaa parenthesis 2x square haddana lagu daray 1 halkan okay waan ku darnay hadda labadii lambar oo 2x square iyo lambar 1 oo ballaanka parenthesiska joogay ayaan waxaan dhex gelinay parenthesis marka saas u dhex gashatid baa waxaa la suubiyaa x plus 1 iyo x plus 1 labadan parenthesis ku dhex jiro waa laba isku mid ah marka midkood ayaa la soo qaataa markaas halkaas lagu qortaa waxaa lagu qortaa x lagu daray 2 marka kan midkood baa soo qaadana intaan ku qoranay hadda sidii hadaayoo kale waan hubin karnaa waxaan subin karnaa multiplication of polynomials si qaabkii la subin jiray ama foiling ama isku dhufashada polynomialska kan baan kan ku dhufan karnaa haddana kan sidaas waan hubinaynaaba hadda 2x square ku dhuf x 2x square lagu dhufta x waa 2x oo leh exponent 3 2x square waxaad ku dhufataa 2 wuxuu noqonayaa 4x square ayuu noqonayaa 4x square ayuu noqonayaa 100 saas buu noqonayaa haddana hal x baan ku dhufanaynaa x hal x ku dhufo x waa iska x kii wey hal x ku dhufo 2 waxaan ka wadaa lambar hal ku dhufo 2 waa labadii waa isla 2 marka soo ma aragtid hadda original problemkii ayuu noqday oo halkan joogay 2x oo la exponent 3 lagu daray 4x square lagu daray x lagu daray 2 cashirkaana meeshaas ayuu ku dhamaaday